Argentina xulka adduunka iyo ku guuleystaha koobka dhammaantood waxay u dagaalamayeen hal qof balse ma ahan qofka aad u malaynayso waa Lionel kale ma ahan Messi waa Lionel Scaloni waxa xulka daba joogay guuldarrooyin isdaba jooga ka hor inta aanu noqonin ku guuleystaha koobka adduunka tani waa sheekada tababare cusub oo halyeeygi ugu weynaa wadanka uu ku tilmaamay midaan ku filnayn dalkiisa u rogay midka ugu fiican dunida oo dhan sheekadu waxay ka bilaabatay ka hor Scaloni sanadii 14 ilaa 18 sanadkii 14 Argentina waxay soo martay qalbi jabkii ugu darnaa adduunka waxay tageen kama dambayska koobka adduunka balse Messi waxa uu helay bilada kaalinta labaad Mario Götze oo bedel ku soo galay ayaa go'aamiyay ciyaarta inkastoo Messi uu ku guuleystay kabta dahabka sanadkaasi Sergio Romero uu qaatay 4 kulan oo shabaqiisa nadiif ah Argentina iyo macalinkeedu waxay ku guuldareysteen midii weyneyd laakiin waxa jiray rajo taasoo ah sanadada xiga iyo ifafaala fiican oo muujinaysa ku guuleysiga koob rajadaasi ayaa soo muuqatay mar kale sanadii 15 tartankii Copa America Messi waxay ugu bilaabatay si degan kadib markii uu dhaliyay gool bilowgii ciyaartii Paraguay laakiin 3 caawin ayuu ku sameeyay afardhamaadkii isla kooxdan xilli Argentina ay ku badisay 6 gool iyo gool taasi oo u sahlaysa in kama dambayska ay ku wajahaan dhigooda Chile laakiin natiijada finalka waxay ahayd mid wadna qabad leh qasaarinta rigoorayaasha waxay ahaayeen mid adag laakiin haddii sanadkii 15 uu ahaa mid aan wanaagsanayn sanadii 16 waxay ahayd mid xun mar kale Lionel Messi ayaa Argentina u dhaliyay 5 gool si uu ugu hogaamiyo finalkii labaad oo xiriira xulka Argentina waxayna u ekeyd in wax walba ay yihiin kuwa qorshaysan fursadda ku guuleysiga Copa America waxa hortaagan xulkii sanadkii hore guuldarrada baday ee Chile mar kale waxa loo baahday in lagu kala baxo gool kulaadyo balse midii hore oo kale ayaa dhacday markan aad ayay xaaladda ugu xumaatay Lionel Messi ma aqbali karin natiijadan kulankaasi kadib Messi waxa uu cilaamiyay inuu ka fariistay xulalka He was seen in tears in the dugout afterwards. oo ay ka dhan tahay sanadkii 18 koobkii adduunka ee ka dhacay Ruushka Messi waxa uu bedelay go'aankiisa laakiin waxba iskama bedelin xulkiisa barbaro ayay kula bilaabatay xulka Iceland xilli Messi rigooro u qasaariyay Croatia ayaa 3-1 ku garaacay ka hor inta aanay guul waqti dambe helin taasi oo u sahlaysa kaalinta labaad ee groupkooda una soo gudbaan wareegga 16 si ay u wajahaan Faransa oo wadatay mid ka mid ah daayirada ugu qatarsan waqtiga 4-3 Argentina ayaa ku macsalaamaysay tartanka inkastoo la arkay safka Argentina inay ka buuxeen ciyaartooy da' waxa cadayd in xulka uu ku tiirsanaa Messi kooxdu waa ay qasnayd Argentina waxay lumisay fursad kale iyo ku guuleysiga Copa balse iyadoo ay jirto qalalaasahaasi oo dhan xiriirka kubadda cagta ee Argentina waxa uu sameeyay doorasho lama filaana tababaraha cusub ee Argentina waa Lionel Scaloni ma ahan markii ugu horeysay ee xulka waxa uu ahaa kaaliyaha macalinka sanadii 18 koobka adduunka waxayna ahayd xulasho iska fudud oo loogu talagalay maamulku meel gaar ah inta xiriirka uu helay macalin joogta Scaloni waxa uu si ahaanayaa macalinka xulka inta uu dhamaanayo Copa America sanada 2019 markii lagu dhawaaqay in Scaloni yahay macalinka xulka Argentina si joogta ah go'aankaasi waxa ka carooday taageerayaal badan oo ay ku jiraan halyeeyada xulkan Maradona si cad ayuu ugu jeesjeesay tababaraha cusub ee la magacaabay mana uusan aqbalin in Scaloni uu ku habboon yahay shaqadan waxa uuna lahaa sabab kasta oo uu ku dhaliilo macalinka sababtoo ah 11 kulan ee ugu horeeyay ee macalinnimo waxa uu isticmaalay in ka badan 40 ciyaaryahan waxayna u muuqatay inaysan sahlanayn qorshaha suurtagal ka dhigi kara in guul la gaaro
xitaa waa ay ka sii dartay oo waxay ku dhammaysteen kaalinta saddexaad tartankii Kooba Ameerika sanadii 19 laakiin waxay taageerayaasha ku qaboobeen inuu ku jiro waqtigiisii ugu horeeyay ee la qabsiga xulka balse markii uu saldhigtay waxa uu la yimid qorshe uu ku guuleysanayo tallaabada ugu horeysa waa in la bedelo nidaamka si uu u noqdo mid dhaxalgala macallinku wuxuu ogaa in loo baahan yahay gool sidaas daraadeed kooxdii uu soo xushay sanadii 21 waxay lahaayeen hal ujeedo oo kaliya in la guuleysto wax walba oo dhaca 3 gool iyo barbardhac ayay ka heleen heerka is-aragga groupka saddexdooda kulan ee ugu horeysayna waxa ay dhaliyeen min hal gool ma ahayn ujeedada in la sameeyo koox fiican ee ujeedku waxa uu ahaa in la helo koox isku xiran Messi ayaa si aad uga dhex muuqday xulka isagoo ka qayb qaatay 6 gool 2 kulan gudahood Bolivia kulankii ugu dambeeyay heerka gruubyada Ecuador quarter-finalkii balse hadal haynta ugu badan ayaa timid kadib markii macallinku uu wacay ciyaaryahan ay ugu dambeysay 8 sano ka hor xitaa marnaba aan u ciyaarin xulka Argentine waa Martinez kaasi oo yimid sanadii 21 Kooba Ameerika Esculani waxa uu go'aamiyay inuu yahay doorashadiisa koowaad ee uu ku aaminay ilaalinta shabaqa Argentina waxa uu markiiba ka soo dhalaalay shaqadiisa kadib badbaadintii rigooradii Vidal inkastoo ku celis ahaan looga dhaliyay kulankii Chile ee heerka gruubyada laakiin wareegii semifinalka waxa loo baahday in lagu kala baxo rigoorayaal markii ay ka hortageen dhigooda Colombia wuxuuna sameeyay laba badbaadin oo cajiib ah sida inuu yaqaanay halka ay ciyaartoyda Colombia dhigayaan kubadda taasi oo u suurtagelisay in Argentina ay tagto finaalaha 3 jeer 6 sano ee ugu dambeysay markan waxay iska hor imaanayaan kuwa ay aad ugu xifaaltamaan kubadda cagta gudaha waa Brazil garoonku waa mid camiran laakiin hadal haynta waa Lionel Messi ma ku guuleysan doonaa koobkiisii ugu horeeyay ee xulka balse Esculani waxay u ahayd habeen ku weyn waayihiisa habeen uu ku cadeyn karo in doorashadiisu ay ahayd mid saxan Argentine waxay dhalisay gool balse kama imaanin goolkaasi Messi waxa dhameystiray Di Maria si uu uga caawiyo Messi riyadiisa ku guuleysiga Kooba Ameerika iyo koobkii ugu horeysay muddo 28 sano kadib Esculani waxa uu cadeeyay inuu yahay qofkii ku habboonaa shaqada laakiin midda weyni waa ay dhiman tahay tababaruhu waxa uu doortay ciyaartoy ku ciyaarta qadiyada wadankooda una sameeya wax walba xulkooda waxa xulka looga yeeray daayiro cajiib ah oo ay ku jiraan Alvarez iyo Magalista Esculani waxa uu helay fikradda ah in la isku wado daayirada iyo waaya aragga xulka Messi ulama uusan dhaqmayn Esculani sida kaliya inuu yahay macallinkiisa laakiin xitaa waxa uu ahaa walaalkiisa oo kale isla mar ahaanta waxa uu sameeyay isku dheelitirnaan wanaagsan oo u dhaxaysa ciyaartoyda iyo Lionel Messi waxa uu dhisay waji cusub oo Messi ka yareynaya culayska xulka iyo inuu kaligiis qaado muddo 10 sano kadib waxay qaadeen in mas'uuliyadda la wadaago si wada jira kadib ku guuleysiga Kooba Ameerika Argentine waxay noqotay xul laga cabsado bilowgii sanadii 22 waxay 3 iyo waxba ku garaaceen Talyaaniga kulan aan la dareemin inuu yahay final Esculani waxa uu dhisay koox udub dhexaad uu yahay Messi xitaa haddii uusan dhalinin gool taasina ma ahan in Esculani uusan lahayn taatiko uu ku ciyaaro kulamada marmarka qaar waxa uu dheelaa 4-4-2 marna 4-3-3 mid kastaba waa inaad ku ciyaartaa si dhaqso leh difaacasho fiican iyo samaynta fursado badan si taas loo sameeyo waxa loo baahday qad dhexe oo aragti fog fahankiisa uu badan yahay si ay ugu qasbaan ciyaartoyda ka soo horjeeda inay sameeyaan qaladaad haddii Kooba Ameerika uu ahaa howlgal weyn oo la qabtay waxa jira mid ka weyn sanadii 22 Qatar iyo koobkii adduunka Argentina kuma aysan guuleysanin tartankan tan iyo sanadii 1986 laakiin markan waa mar loo saadaalinayo ku guuleysiga tartanka isku xirnaanta kooxda
ayaa keentay inay ahaadaan kuwo aan laga badinin 36 kulan oo isxiga. Messi ayaa ku jira bandhigiisa fiican, daayaro cajiib ah ayaa ku soo biiray xulka sida Enzo Fernandez. waxa la gaaray kulankii furitaanka oo ay la yeesheen Saudi Arabia. waxa loo saadaalinayay inay si fudud ku dhaafi karaan Sacuudiga, laakiin lama filaan ayaa dhacay markii Argentina ay guuldaro 2 gool iyo gool ah kala kulantay Sacuudiga. waxay ahayd natiijo lama filaan ah. u gudbidda wareegga xiga ee Argentina ayaa noqotay mowduuca cusub ee la hadal hayo, balse Scolani waxa ku jiray qorshe kale oo ku saabsan kulanka xiga iyo sidii mar kale ayuusan u dhici lahayn guuldaro. kulanka xiga waxa uu ahaa mid guul ama geeri ah oo ay la leeyihiin dhigooda Mexico. ciyaartu waxay ku bilaabatay jawi degan, Messina waxa uu furay goolasha. mar kale Enzo Fernandez ayaa dhaliyay gool cajiib ah oo u diray Argentina in la sugo kulanka ugu dambeeya groupka oo ay la leeyihiin dhigooda Poland. waa ay sameeyeen oo McAllister iyo Alvarez ayaa qaatay go'aaminta ciyaarta iyo u gudbitaanka wareegga xiga ee 16 si ay u wajahaan Australia. waqti dambena guul 2 gool iyo goolna ay uga helaan, balse xiisaha waa wareegga 8-damaadka oo Argentina ay ku wajahayso xulka oranjaha. wuxuu ahaa kulan xiiso leh, labada kooxba ay ku dagaalameen gudaha garoonka. 2-2 ay ciyaartu noqotay waqtigii dheeriga ahaa. kulankan waxa uu Messi u ahaa wax walba marka laga cabiro dabaaldegiisii goolkii labaad ee ciyaarta, balse Holland waxay ka soo noqdeen 2 gool 80meeyadii si ay ciyaarta uga dhigaan barbaro 2-2. markan Argentina waxay u baahan tahay geesigooda. waxa uu na sameeyay 2 badbaadin oo cajiib ah. Argentina u diray wareegga 4-damaadka waxay isku arkeen xulka Croatia. Alvarez iyo Messi ayaa Argentina siiyay guul 3-1 una jaray tikidkooda kama dambaysta. bandhigooda waxa uu ka marqaati kacayay inay noqon karaan guuleystayaasha, kuwaas oo ku soo burburiyay Croatia oo 4 sano ka hor halkani oo kale ku reebtay. waxay u muuqatay in ugu dambeyntii tababaraha uu dhammaystiray aqoonsigiisa xulka, laakiin finalkani waxa uu ahaa mid qaas u ah Argentina. waxa yimaaday kulankii la wada sugayay ee u dhaxeeyay Argentina iyo France 90 daqiiqo iyo 30 dheeri ah oo lagu daray rigoorayaal. waa waxa ka dhigaya Scolani inuu noqdo macallinkii ugu horeeyay ee ku guuleysta Argentina Copa Dawn tan iyo Carlos Bilardo. kooxdani si aad ayuu u soo abaabulay si uu uga dhex muuqdo kulanka. Messi ayaa rigooro ku fulay kahor intaanu Di Maria uusan labaynin. 15 daqiiqo ayaa kaga dhimanayd inay noqdaan xulka adduunka kahor intaanu Mbappe bedelin wajiga ciyaarta. 2 gool oo degdegana uusan dhalinin, waxayna noqotay 2-2 ciyaarta waqtigii saxda ahaa ee loogu talagalay. waxaa loo baahday waqti dheeri ah si loo kala saaro xulalka. Messi ayaa mar kale hoggaanka u dhiibay xulkiisa, balse Mbappe ayaa ka daba yimid si uu uga dhigo ciyaarta 3-3. daqiiqada kadib fursad ayaa timid, laakiin waa ay qasaariyeen Faransa kahor inta aanu Martinez samaynin badbaadin cajiiba si kulanka uu ugu diro rigoorayaal. tani waa fursadda Argentina kadib badbaadintii iyo qasaarintii xidigaha Faransa. Gonzalo Montella ayaa haysta hal fursad uu kaga dhigi karo Argentina guuleystayaal. Messi indhaha ayuu kor u qaaday. Scolani ciyaarta ayuu indhaha ku hayay, laakiin xaqiiqda ayaa ah in dhulgariir uu ka jiray gudaha jirkiisa. Montella waa uu tuuray kubadda. Argentina iyo Scolani waxay noqdeen guuleystayaal. tani waxay ka dhigan tahay in ilmada ay ka qubatay Scolani xitaa uu aamini waayay inuu Argentina ka noqday halyay. kooxdani Messi waxay u suurtagelisay ku guuleysiga koob iyo abaartii Argentina inuu soo abjaro.